مالي وللنجم يرعاني. السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada. Maanta waxaan idin hayaa cashar aad iyo aad u xiiso badan. Haddaad daawatid adaa u bogsan doona casharkan. Waxaa ku sheekaysanaya casharkan mid magaalo joog iyo baadiyo joog ah. Conversation waa wada sheekaysi. If we make haddaan sameyno comparison is barbardhig the life nolosha of the town ee magaalada and iyo the life nolosha of the countryside ee baadiyaha. Which one midkeeba do you like aad jeceshahay to life inaad ku noolaato? B. I like waxaan jecelahay to life inaan ku noolaado in the countryside baadiyaha. A. Why do you like maxaad u jeceshahay to live inaad ku noolaatid in the town ee magaalada in the countryside baadiyaha? Because maxaa yeelay. A. Because maxaa yeelay. I like because maxaa yeelay countryside baadiyaha is clear waa mid nadiif ah and fresh place iyo goob fresh waaye. It is iyadana quiet waa mid degan and iyo peaceful place iyo goob nabadeed waaye. So sidaas darteeda when goortii you life ku noolaatid in the countryside baadiyaha you feel waxaad dareemi kartaa calm deganaan and iyo relaxed nasasho. Why do you like maxaad u jeceshahay. Why sababtee do you hate aad u necday to live inaad ku noolaatid in town in why sababtee do you hate aad u necban tahay to live inaad ku noolaatid towns magaalooyinka. B. Because maxaa yeelay towns magaalooyinka are overcrowded waa mid aad u buuq badan. Towns magaalooyinka are dirty waa mid wasakh ah. Towns magaalooyinka are not safe ma ahan amni. There are waxaa jira many dangerous khataro fara badan in towns magaalooyinka dhexdooda. You can see waad arki kartaa the life nolosha of the towns magaalooyinka waa very stressful waa mid aad u buuq badan waaye ayuu leeyahay. Fadlan haddaad ku subtahay janaalka subscribe like haddaad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. kulankan ilaa kulankiisa aan ka kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.